magaalada Berlin ee dalka Jarmalka waxaa ka furmay shir caalami ah oo la doonayo in xal loogu helo colaadda ka aloosan dalka Liibiya sidoo kalena la joojiyo saameynta iyo faragelinta ay dalal dhowr ah ku hayaan dalkaasi kuwaasi oo kala taageera kooxaha ku dagaalamaya Liibiya. Shirkan ayaa imanaya iyadoo ciidamada General Haftar ay horjoogsadeen dhoofinta shidaalka ee Liibiya. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintan noo haya. mahadsanid Maxamed Bashiir. hogaamiyaasha caalamka ayaa hadda maanta isugu tegay magaalada Berlin si dardar cusub loo geliyo hanaanka nabadda ee Liibiya. waa isku day kale oo la doonayo in lagu joojiyo in Liibiyada dagaaladu aafeeyeen ay noqoto Suuriyadii labaad. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxa u tagi doona madaxweynayaasha Ruushka, Turkiga iyo Faransiiska iyo hogaamiyaal kale oo dhammaan dalkaas u tagay shir qaramada midoobay martigelintiisa leedahay. yoolka shir madaxeedkan ayaa ah sidii loo joojin lahaa raadka iyo faragelinta quwadaha adduunka ee dagaalka, ha noqoto geynta hub, ciidan amaba maalgelinta dagaalka. hogaamiyaasha labada dhinac ee dagaalamaya waa Faiz Sarraj, madaxweynaha dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay, iyo Generaal Khalifa Haftar, hogaamiyaha kooxda mucaaradka ayaa iyagana la filayaa inay yimaadaan kulan noociisa ah kii u horreeyey ilaa iyo sanadkii 2018. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hadda maanta sheegay in shir madaxeedku uu noqon karo tallaabo muhiima oo lagu xoojin karo xabad joojinta iyo xalka siyaasadeed ee Liibiya laga gaarayo. hase yeeshee xoogag raacsan Generaal Haftar ayaa arrintaasi sii adkeeyey ka hor wadahadallada, iyagoo horjoogsaday saliiddii laga dhoofin jiray dekedaha muhiimka ah. arrintan ayaa curyaaminaysa ishii ugu weyneyd ee dakhliga dalka. Haftar ayaa tallaabadan u qaaday isaga oo diidan go'aanka Turkigu uu ciidan ugu soo diray Liibiya si uu u badbaadiyo xukuumadda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee uu hogaamiyey Ra'iisul Wasaare Sarraj. tallaabadan Turkiga ayaa hoosta ka xariiqaysa raadka xun ee faragelinta dibaddu ay Liibiya ku leedahay. Sarraj ayaa waxaa taageera Turkiga iyo Qatar, halka Haftarna ay taageeraan dalalka Ruushka, Masar iyo Isutaga Imaaraadka Carabtu. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee arrimaha Liibiya Ghazam Salame ayaa isaga oo la hadlaya wakaaladda wararka AFP yidhi Liibiya waxay doonaysaa in dhammaan faragelinta dibaddu ay joogsato. qaramada midoobay ayaa rajaynaysa in dhinacyada oo dhamme ay wada seexaan hanaan faragelinta lagu joojinayo, laguna ballan qaadayo xaalad qaboojin horseedi karta soo afjaridda colaadda. dhinaca kale, dad dibadbaxaya ayaa jimcihii isugu soo baxay magaalooyinka Liibiya ee Benghazi iyo Tripoli. dibadbaxayaasha Benghazi ayaa sheegay in shir madaxeedka ayna wax badan ka filaynin, iyaga oo diidan faragelinta Turkiga ee arrimaha Liibiya. xarunta waddanka ee Tripolina boqolaal qof ayaa isugu soo baxay kadib markii mid ka mid a ciidan tababar u socday uu 4 January ku dhaawacmay duqeymo xagga cirka ah oo xiradooda lala beegsaday. dadka ayaa diidanaa in dowladdu caalamku aqoonsan yahay ay heshiis la gasho Khalifa Haftar, iyagoo sheegay in xukuumaddu ay khiyaameynayso dadkii ku dhintay dagaalkan oo bilowday bishii Abriil ee sanadkii hore. mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.